waxa weeyaan buuniyow dee malaa macaashkaaga ku soo dhaca inaad been sheegto annaga maxamed kaahina waxba nagama bixinin xukuumad kalena waxba nagama bixin laba xaalo ayuun baan soo fadhiistay halkan maanta inaan dadkii ilaa intaana dhinac taagnaa aanu mahad celiyo waxay noo qabteen dhammaantood hadday mucaarad tahay iyo hadday tahay shacabba inaan u mahad celiyo iyo baan soo fadhiistay iyo muxuu ahaa dadka beenta naga sheegaya waxaanan geyin annaga nagu sheegaya ilaa inta anagoo dhibaataysnayn oo aanay waxba noo qabanin haddana maanta naga been abuuranaya oo maxay tahay been naga sheegaya ayaan halkan soo fadhiistay horta marka u horeysa saxaafadda aad baan u salaamaya warka iyaga meel fog bay gaarsiiyeen ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina janno iyo khayr ka dhigo dhammaan xildhibaanadii hadday tahay axmed khaliif ugu horeeyo oo uu mudanka ka yahay inankaa horta iyo siciid cuday labadaba si gaara baan u salaamaya looyaradeedii inanta looyaradeedii iyagana aad baan u salaamaya dhammaan mucaaradkii ilaa intaana garab taagnaa iyo shacabkii intaana garab taagnaa dhammaantoodba aad baan u salaamaya dembi baa nalala raadiyey annagoo dad muwaadiniina u dhashay dalka hooyo u dhashay u soo halgamay gaar ahaan anigu waan u soo halgamay run ahaantii waan u soo halgamay haddana waxaa nalala raadiyey dembi aanan lahayn ayaa nalala raadiyey oo nalala doonay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa horta ku mahadsan dembigii naga bari yeelay wixii nalala raadiyey dadkii dhibaatadaa nala doonayna xasbi allah baanu leenahay annagana fii yowma min alayaam ilaahay subxaana wa tacaala abaalkeeda hana siiyo iyaga horta intaasaan ku dhaafayaa waxa weeyaan ninka buuni la yidhaahdo xisbigan kulmiye u ah afhayeenka horta marka hore waxaan ku weydiiyey ma dadka xukuumadda ah oo dhan baad afhayeen u tahay mise shakhsiyaad gaara baad afhayeen u tahay dhowr jeer oo aad been sheegtay oo aad annaga been naga sheegtay waxaan waqti baan u waayey laakiin hadda un baan waqti u helay waxa weeyaan ninkii ilaahay khayr siiye xildhibaan axmed khaliif waxaa tidhi wuu baxsaday manuu baxsanina wuu joogaa jasaakalla khayris baanu isaga leena adiguna dee maxay tahay waxaad nagu samaysay dee waxa weeyaan aad isaga ula jeeday dee waa waxaanu aragno ta labaad waxaa tidhi lacagtii waxa ka bixiyey maxamed kaahin baa ka bixiyey annaga maxamed kaahina waxba nagama bixinin xukuumad kalena waxba nagamay bixin annagoo gacmo haysaysanana kamaanaan soo bixin taa waxaan ka leeyahay waxaad aniga ii soo sidiya saafka iyo goolka adiguba sabool baad tahee siiso ubadkaaga hadduu wax noo taraya wuu joogay wuuna arkayey ilaa intaanu dhibaatoonaynay aanu marba salli ku noqnoqonaynay annagoo dad muwaadiniina sidii oromada naloola dhaqmay meel allayaale meelay hawsheedu ka xidhantahay aanu fahmi weynay allahuma mustacaan iminka markii dambena aanu fahanay khadka oo dhan aanu fahanay laakiin waxaa noo eekayd inuu yidhaahdo waxaan way iga da'wan yihiin aan waxba kama qaban karo waa maxamed kaahin inuuna yidhaahdo aniga waxba kama qaban karee raalli iga ahaada annagoon gacmaysaysan baana ayaanu ka soo baxnay xabsigii manaanaan arag manaanaan ogeyn lacagta iyadana annaga iska bixinay inay annaga nagu lib sheegtaan oo iyagaan waxba naga bixinay yidhahan waxbaanu ka bixinay waxa weeyaan waa wax laga qurux badan yahay waa dad waaweyn inay been sheegaan waxa weeyaan buuniyow dee malaa macaashkaaga ku soo dhaca inaad been sheegto laana waxaad sheegtay waxaad tidhi wuu baxsaday axmed khaliif wuu baxsaday waxaad tidhi maxamed kaahin baa ka bixiyey lacagtii xadhigga maxamed kaahin baa ka bixiyey waxaad tidhi cukusa shirqoolkuna idinkuuba idinku cadyahay haddaa xukuumaddii tihiin idinkuuba idinku cadyahay alxamdulilah wax weyn buu noo qabtay cukusi annaga wax weyn buu noo qabtay haddii aanay inantaydu aanay cukuse la soconna waxaaban u malaynaya inaan meel dheer in laga dooni lahaa aan ban la arkeen baaban u malaynaya marka
عكوسنا وحو كمدي هي دتك أنا مهد علينا أيو كمدي اللهم استعان dad badan baan halkan uga mahad celinayaa looyarintii haday tahay wasiir galaal haday tahay inamadii xildhibaanka haday tahay musharaxa madaxweynaha cirra haday tahay mucaaradka haday tahay dhalinyaradii oo dhan haday tahay saxaafadda oo warkayga meel fog gaarsiisay dhamaan waan u mahad celinayaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa sabankii xumaadaba rag baa sahaydananayse warkan waa la ogaaday waxa weeyaan adduun magac baa ka hada ileen maryu way ka madaan adduun magac baa ka hada annaga wallaahi sida nolola dhaqmay si xun bay ahayd laana dambi aanan lahayn baaba nolola doonay maalin walba dambi baa la sameynaya xagee dambiga laga keenaya ma cirku ka soo dhacaya ma waxaanu qofku gelin baa la sameynaya aad baan idin wada salaamay dhamaantiin aad baan idin wada salaamaya